wacan oo wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada xubinta wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen oo alaaba aad ka dhageysataan idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari waxa idin la socodsiyaa xubinta anigoo ah Anwar Maxamed. taariikhdu waxay ku beegan tahay 23 bisha 9aad sanadka 2018 qodobada dhageystayaal aad xubinta wargeysada ku maqli doontaan waxa ka mid ah madaxweyne Uhuru oo aan la kulmi doonin Kenyaanka ku nool wadanka Mareykanka 4,000 oo dugsi oo loogu deeqay mashruuc ku kacaya balaayiin shilin. Kiriako Tobiko oo ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid wasiirada deegaanka ee Koonfur Afrika. Iran oo weerarka Ahvaz ku eedeysay dalalka gacanka Carbeed. burcad afduwatay markab ay saarnaayeen shaqaale iyo haweeney u geeriyootay sun ay cabtay awgeed. kuwaasina dhageystayaal waxay ahaayeen qodobada wargeysada aad ku maqli doontaan haatanna iyagii oo faahfaahsan. haddii aanu ku bilowno wargeyska Daily Nation, madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta oo lagu wada in wadanka Mareykanka oo uga qayb galo fadhiga 73aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaanan qorsheynin inuu kulan la qaato muwaadiniinta Kenyaanka ah ee dalkaasi ku nool. danjiraha Kenya oo fadhiyo Mareykanka Robinson Njeru oo isaga oo ku sugan magaalada New York la hadlay wargeyska maalinlaha ah ee Nation ayaa sheegay safaaradda iyo wasaaradda arrimaha dibadda inaysan qorsheynin kulan kasta oo u dhaxeeya madaxweynaha iyo qurba joogta. waxa uu sheegay inuusan ogeyn ilaa hadda qorshaha noocaas ah balse madaxweynaha uu kulamo badan kala qayb gali doono madaxda caalamka iskaashiga horumarineed inta uu ku sugan yahay magaalada New York. muwaadiniin badan oo Kenyaan ah ayaa doonayay inay ogaadaan goorta iyo halka uu madaxweynaha kula kulmi doono iyaga sida uu dhaqanka yahay. tani waa markii labaad oo madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta la kulmeynin qurba joogta safarkiisa Mareykanka muddo bil ka yar. dabayaaqadii bishii hore madaxweyne Kenyatta ayaa caasimadda Mareykanka ee Washington DC ku sugnaa 2 maalmood oo aqalka cad ee looga arrimiyay wadanka Mareykanka ee White House kulan kula qaatay madaxweyne Trump balse ma uusan la kulmin qurba joogta halkaasi ku nool. hase ahaatee lama oga muddada uu madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ku sugnaan doono wadanka Mareykanka, balse falanqeeyayaasha ayaa sheegay inaysan siyaasadda hadda jirta aysan ahayn mid saxsan, qaasatan markii madaxweyne Uhuru uu qalinka ku duugay sharci muran badan dhaliyay oo canshuurta kor u qaadayo. qurba joogta ayaa doonayeen in madaxweynaha su'aalo badan oo ku saabsan sharciga canshuurta ay weydiiyaan inkastoo uu madaxweynaha la kulmi doonin. shirka 73aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa la furay 18 Sebtembar. Mr. Gedai ayaa sheegay in madaxweyne Kenyatta uu ka mid yahay mas'uuliyiinta kale ee ka wada hadli doona wadaxaajoodka nabadda iyo ammaanka, hogaaminta dhalinyarada iyo ganacsiga, dhiirigelinta maalgashiga Kenya iyo xarika jaridda duulimaadyada tooska ah ee New York. haatanna haddii aan soo qabto wargeyska The Standard, 4,000 oo ah dugsiga hoose dhexe ayaa lagu wadaa in la gudagalo bisha soo socota baaritaan ku aadan dadaalkooda imtixaanka qaran ee KCPE-da kadib markii ay dowladda ugu deeqday dhaqaale culus oo bundooyinkooda kor loogu qaadayo. wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa tan iyo sanadii 2015 soo saartay barnaamij kor loogu qaadayo darajooyinka ay ardayda keenaan kaasoo la rabo inuusan ka hooseynin darajada 250. guud ahaan dalka iskuulada keenay darajada 243 iyo wixii ka hooseeya ayaa loo soo xushay barnaamijkan. Elijah Mungai oo ah sihayaha agaasimaha fulinta mashruucan u qaabilsan wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay in dugsiyada lagu maalgelinayo mashruucan oo soconaya muddo 4 sano ah si loo hubiyo inay kor u qaadaan darajooyinkooda. waxaa lagu dejiyay 8.8 bilyan oo bangiga adduunka ugu deeqay iskuulada primariga kaasoo hoos yimaada mashruuca barnaamijka horumarinta dugsiyada ee SIP. iyadoo looga faa'iideysanayo barnaamijka ayuu Elijah Mungai sheegay in la siiyay warbixinta KCPE-da iyo warbixinta jawaab celinta iskuul kasta oo ka qayb qaadanayo si looga caawiyo inay ogaadaan meesha ay ka hooseeyaan iyo inay doortaan talooyinka ugu habboon ee lagu hagaajin karo manhajkooda. guddiga imtixaanka qaran ee NEC ayaa soo saaray warbixin ku saabsan darajooyinka 4 sano ee la soo dhaafay dugsiyadan ay ka keeneen imtixaanka KCPE-da. ha yeeshee guddiga ayaa fursaddan uga faa'iidaystay inuu soo bandhigo warbixin ku saabsan in ka badan 20 dugsi hoose dhexe ah oo ay ku jiraan iskuulada aan hoos imaanin mashruucan. marka laga reebo tacliinta, barnaamijka horumarinta iskuulada ee loo yaqaan SIP ayaa sidoo kale doonaysa inay qalabayso guddiyada dugsiyada iyo maamulayaasha oo loo kordhinayo xirfadahooda dhanka maamulka ah.
waqti xaadirkan waxaa tababar ku aadan tayada waxbarasho ee waxbaridda la siiyey dugsiyada 4 dugsi ee mashruucan qaybta ka ah. iskuuladan ayaa waxaa sidoo kale la weydiistay inay hirgeliyaan qalab tilmaam u ah waxqabadka macallimiinta si ay u ogaadaan meesha iyo goorta cilada la buuxin karo. dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan xubinta wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen. haddii intaasina aan kaga gudbo wargeyska Daily Nation iyo wargeyska The Standard, haatana aan soo qabto wargeyska The Star. wasiirka deegaanka ee dalka Keriako Tobiko ayaa u tacsiyeeyay ehelkii qaraabadii ay ka tagtay Enda Molewa oo ahayd wasiirada deegaanka ee Koonfur Afrika oo shalay geeriyootay. madaxweynaha waddanka Koonfur Afrika ayaa ku dhawaaqay in Mrs Molewa ay ku geeriyootay isbitaalka Pretoria kadib xanuun yar oo ay la xanuunsaneed. farintiisa ayuu Mr Tobiko ku sheegay in geerida ku timid Molewa ay tahay mid naxtin leh. waxa uu intaa ku daray wasiirka deegaanka dalka Keriako Tobiko inay walwal iyo naxtin ku noqotay markii uu wararka ka maqlay inay dhimatay wasiirada deegaanka ee Koonfur Afrika. hase ahaatee waxa uu Mr Tobiko sheegay in dabayaaqadii bishii Agosto 3 uu Enda Molewa ku soo dhaweeyay magaalada Mombasa halkaas oo kula qaatay kulan aad u wanaagsan. Tobiko ayaa wasiirada geeriyootay ku tilmaamay qof naftiis u muujiyay awood badan iyo sababo badan, isagoo intaa ku daray inay gacan weyn ka geysatay xorriyadda Koonfur Afrika iyo la dagaalanka sinaanta haweenka ee bulshada. madaxweynaha waddankaasi ayaa amar ku bixiyay in goob walba oo calanka Koonfur Afrika ka taagan yahay hoos loo dhiga si loo muujiyo dhimashada wasiiradaasi. waxa uu sheegay in geerida haweeneydaasi ay tahay gacan weyn oo ka baxday waddanka Koonfur Afrika iyo guud ahaan qaaradda Afrika. haatana haddii aan soo qabto wargeyska Daily Monitor oo ka soo baxa waddanka Uganda, ciidamada waddanka Nigeria ayaa xaqiijiyay in koox burcadbadeed ah ay afduubatay shaqaale saarnaa markab maraya xeebta Boni oo u dhow Port Harcourt. howlwadeennada markabka ayaa waxay sheegeen in burcadbadeedda ay markabka xoog ku soo koreen. markabka la afduubtay ayaa waxa uu siday qamadi. kooxda burcadbadeedda ayaa la tagtay 12 ka mid ah shaqaalihii markabka saarnaa oo ka koobnaa ilaa 19 qof. balse shirkadda markabka iska leh ayaa weli shaacanin waddamada ay ka soo kala jeedaan shaqaalihii markabka laga afduubtay. muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa biyaha waddanka Nigeria ku soo badanayay weerarada burcadbadeedda ay soo qaadaan. bishii May ee sanadkan ayaa la afduubtay 11 ka mid ah shaqaale saarnaa markab maraya goobta lagu magacaabo Port Harcourt, waxaana la haastay muddo 14 toddobaad ah. waxaan ku guda jirnaa xubinta wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen. haddii aan soo qabto wargeyska Al-Ahram, hogaamiyaha ruuxiga ah ee waddanka Iran Ayatollah Khamenei ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday meel ay gado ka ciyaar ku soo bandhigayaan militariga koonfurta galbeed ee waddankaasi uu ahaa weerar lala xiriirinayo xulufada uu Mareykanka ku leeyahay gobolka. hase ahaatee Khamenei carabka ma uusan ku dhufanin waddamada uu aaminsan yahay inay ka dambeeyeen weerarkaasi. ugu yaraan 29 qof ayaa ku dhimatay halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii magaalada Ahvaz ay rag hubaysan rasaas ku fureen. askartii goobta ku sugnayd ayaa markii uu weerarka dhacay ku cararay goob gabaad u ahayd halka dadkii rayidka ahaa ay naftooda la baxsadeen. sidoo kale waxaa weerarkaasi ku nafwaayay 4 ka tirsan kooxda mintidiinta ah. waxaa mas'uuliyadda weerarkaasi sheegtay koox asalkoodu Carab yahay oo gooni ugoosad ah. Star FM codka gobolka Waqooyi Bari aad naga dhageysanaysaan. dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa xubinta wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen. waxaan idinla socodsiinaa anigoo ah Anwar Maxamed. haatana dhegeystayaal waxaas oo dhan wax ka duwan. haweeney u geeriyootay sun ay cabtay kadib markii ehelkooda ay u diideen inay mar kale isguursadaan nin ay kala tageen. gabadhan oo sunta ay cabtay u geeriyootay ayaa waxa ay degnaayeen xaafadda Jungal oo ka tirsan degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir waddanka Soomaaliya. haweeneydan sunta cabtay ayaa waxaa magaceeda lagu magacaabaa Shukri, waxaana sababta ay sunta isugu dishay lagu sheegay in loo diiday wiil ay isguursan rabeen. gabadha sunta cabtay ayaa la sheegay in wiilka ay jecleed hal wiilna ay u dhashay balse ay kala tageen ayna doonayeen inay mar kale isku soo laabtaan. hase ahaatee ehelka ay diideen inay mar kale isguursadaan. dhacdadan oo aad looga naxaha ayaa xaqiijiyay dad daris la ah, waxayna sheegeen in wiilka iyo gabadha ay ahaayeen 2 qof oo isjecel. toddobaadkii la soo dhaafay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka dhacday dhacdooyin weli murugadooda shacabka Soomaaliyeed aysan qalbigooda ka go'in.
xubintii wargeysada aad kala socoteen idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari waa naga intaas dhageystayaal waad ku mahadsantihiin dhageysigiina intaan ku kulmi doono xubintan teeda kale waa Anwar Maxamed iyo bahda Star FM oo idin la dhageystayaal sidaas iyo nabadgelyo.